The BBC has questioned the controversial social media influencer Andrew Tate. You've got children's organisations in the UK, you've got rape organisations in the UK, you've got the police naming you by name as someone who has a harmful influence on children and on women. BBC da wareesigii ay sameeyeen mid ka mid ah kuwii ugu saameynta badnaa ayuu noqday wareesiga ay la yeesheen Andrew Tate. Wareesigan ee BBC da soo bandhigtayna wuxuu noqday mid social media gilgilo oo aad ayaa la isku dhaxmarayay maalmihii ugu dambeeyay. Wareesigan wuxuu noqonayaa kii ugu horeeyay oo Andrew Tate si public ah ama official ah u bixiyo kadib marka xabsiga laga soo daayay, laakiin hadda wali xabsi guri ayuu ku jiraa. She accused me of a crime. Emotional or psychological manipulation. I've asked you a question and I've allowed you into my house. I'm asking you a question. Correct, but you're not the boss here because I've allowed you into my house. I'm asking you the question. Correctly, and I'm telling you. You get to decide the answers. No, we're equal here. I've allowed you into my house. laakiin dhinaca kale BBC da waxa ku dhacday dhurbaaxsho aysan filaynin. waxay soo bandhigeen wareysi soconaya 9 minute kaliya, laakiin wareysiga ay Andrew Tate la yeesheen wuxuu ahaa ku dhawaad hal saac. siday u soo jarjarayeen ayaa waxay ka dhigeen 9 minute kaliya. haddaba sidee wax u dhaceen? It's completely disingenuous. And the reason I'm sorry, we have agreed to do an interview where you are going to ask questions that are going to give us the opportunity to clarify some things. These are very loaded questions, and so far, I'm sorry. So, these are very loaded questions, and this is not what we discussed, and this is not the conversation that we agreed to. We were very clear that the questions you're sitting there and just accusing. We're not here to face new allegations. This has all been discussed. Answers have been provided. So if we could please move on from this side of the interview, I will. magacaygu AbdiKhafar gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. muuqaalkeena waxaan uga hadlaynaa wareysigii gilgilay social media ee maalmihii ugu dambeeyay aad la isku dhaxmarayay. sidaan dhammaanteen wada ogsoonnahay, warbaahinada BBC da iyo CNN waxay ka mid yihiin warbaahinada bidixda xagjirka ah ee aaminsan modern world ama dunida cusub. Andrew Tate Twitterkiisa wuxuu ku soo qoray markii xabsiga laga soo daayay in BBC da ay ka codsanaysa kana tuugaysa in wareysi ay la yeeshaan, waxayna sheegeen inay ka wada hadli doonaan cadaalad darrada iyo waxyaabaha ay ku haysteen Romania. ugu dambeyntiina wareysigoodu u ogolaaday. BBC dan waxay soo direen gabadhan lagu magacaabo Lucy si ay wareysiga uga qaado Andrew Tate, laakiin su'aalaha ay la imaaday oo Andrew Tate ay soo hordhigtay ma ahayn su'aalihii ay BBC da ka codsatay in Andrew Tate ay weydiin doonto. si xanaaq ku jira ayay u weydiinaysay su'aalo eedeema ah iyadoo ku eedeynaysay inuu gabdho kufsaday iyo sidoo kale in dhalinyarada u marin habaabinayo. dhammaan su'aalaha ay naagtan meesha la imaaday waxay ahaayeen su'aalo eedeema ah, laakiin waxayna BBC da ogeyn oo isan ka warqabin in Andrew Tate uu duubanayo muuqaalkan oo dhameystiran. meeshana waxaa ka dhacday dood aan waxba la isku la reeban. She accused me of a crime. Emotional or psychological manipulation. I've asked you a question and I've allowed you into my house. I'm asking you a question. Correct, but you're not the boss here because I've allowed you into my house. I'm asking you the question. Correctly, and I'm telling you. You get to decide the answers. No, we're equal here. I've allowed you into my house. su'aalaha ay weydiisay waxaa ka mid ahaa waxa ku soo eedeeyay macallimiinta iskuulada, waalidiinta, hay'adaha u dooda ciyaalka. dhammaantoodna waxay kugu eedeynayaan in dhalinyarada aad marin habaabinayso oo wada khaldan aad ku jiheynayso. laakiin Andrew Tate wuxuu ku jawaabay in dhalinta oo ugu yeero ama ku wacyigeliyo in waqtigooda ay ka faa'iideystaan, jidkooda ay dhisaan oo jiimka aadaan si ay u noqdaan dad adag. hal abuur iyo fikrado ay la imaadaan si ay uga xoroobaan nolosha matrixka. You've got children's organisations in the UK, you've got rape organisations in the UK, you've got the police naming you by name as someone who has a harmful influence on children and on women. Chief Executive of Rape Crisis naming you individually as spreading a dangerous ideology of misogynistic rape culture. I preach anti-drug, I preach religion, I preach no alcohol, I preach no knife crime. Every single problem with modern society, I'm against. But I'm teaching young men to be disciplined, to be diligent, to listen, to train, to work hard, to be exactly like me. And I'm saying that if men grew up like me, which are hardworking and diligent and emotional control and stoic, we're going to have a better society, not a worse society. haddaba galbeedka bidixda mid ee Andrew Tate kula dagaalamayaan ayaa waxay tahay waxyaabahaas in dhalinyarada uu soo jiito tusana wadada saxda ah, laakiin ayaga hadafkooda waxay rabaan inay soo saaraan wiilal jiljilicsan. waana sababta ay hadda ugu ololeynayaan waxyaabahan LGBT-ga ah, ama in ninka uu iska dhigo trans ama gabadha iska dhigto transgender, in hormoneska loo kala bedelo. Andrew Tate fanskiisa ama dadka ku xiran waxay u badan yihiin 98% dad dhalinyaro oo hadda soo kacayo. haddaba wareysigaas ee BBC da Andrew Tate la yeelatay wuxuu ahaa dagaal ay ku soo qaadeen kana damacsanaayeen in magaciisa ay ku dilaan. wareysigaasna wuxuu soconayay 40 daqiiqo, laakiin BBC da intay jarjareen oo ayaga wax ay rabeen ka soo qaateen ayaa waxay soo dhigteen page-kooda waxayna ka dhigeen 9 minute kaliya. laakiin dhinaca kale Tate kaamiradiisa ayaa u shidneed. wareysiga oo aan waxba laga jarin ayuu wuxuu soo dhigtay
page-kiisa Rumble. muuqaalka ay BBC-da soo jarjartay markay soo dhigeen waxay la kulmeen dhaleecayn iyo dacaayad fara badan oo uga imaaday taageerayaasha Andrew Tate, waxaana lagu eedeeyay in muuqaalka ayaga inta ay rabeen ay ka soo qaateen oo ay ka soo tageen qaybo badan oo muuqaalka ka mid ahaa. waxay isla hayeen dadka iyo dhalinyarada u soo bandhiga wajiga qarsoodiga ah ee Andrew Tate, laakiin kommentiyada dhan waxa wada qabsaday in BBC-da la eedeeyo. sidaan oo kale ayay BBC-da fadeexo ugu dhacday kadib markay wareysi la yeesheen Elon Musk. waxaa laga joogaa hadda 2 bilood. Elon Musk and our technology correspondent James Clayton. It is one of his first interviews since he bought Twitter. waxay meesha la soo fadhiisteen maad ka hor istaagtid hate speech-ka Twitter-ka lagu faafinayo. BBC-da iyo xulafadooda ayaga hate speech waxay u yaqaanaan in runta loo sheego ama laga hor imaado khaniisnimada ama waxyaabaha ay wataan. ka hor inta uusan gadan Elon Musk Twitter-ka, cidii wax yar oo dhaliila u soo joodaysa qoomka khaniisiinta ah Twitter-kooda waa laga xiri jiray ama hawada ayaa laga saari jiray. laakiin markuu Elon Musk gatay wax walba u fasaxay, ayagana waxay ka xumaadeen oo ay ka gubteen in qoomkan Twitter-ka lagula dagaalamo. Elon Musk has allowed hate to spread far and fast on Twitter. Elon Musk, when he took over Twitter, sent up the bat signal to every person who has felt unable to spread racism, misogyny, homophobia. In the weeks since Musk's takeover, researchers found a dramatic 202% rise in tweets containing anti-black slurs, a 58% rise in tweets with anti-gay slurs, and a 60% increase in anti-Semitic tweets. sidoo kale BBC-da su'aalaha ee Elon Musk weydiiyeen waxaa ka mid ahaa Twitter waxa ku soo laabtay Andrew Tate, haddaba miyaadan ka qabanaynin ninkaas? Andrew Tate, who were brought back, who were previously banned for things like hate speech. Do you think you prioritize freedom of speech over misinformation? I say, sir, that you don't know what you're talking about. Really? Yes, because you can't give me a single example of hateful content, not even one tweet, and yet you claimed that the hateful content was high. Well, that's false. No, what I claimed... You just lied. What I claimed was there are many organizations that... haddaba dhammaanteen waan ka wada dhiragsanahay, waana wada ognahay warbaahinada waxyaabaha ay wataan iyo waxyaabaha ay bambuuninayaan. muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro. waqtigaagana waad ku mahadsan tahay.